wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo maanta dalka dib uga soo laabtay ayaa gegida diyaaradaha ee Cigaal International Airport waxa uu kula hadlay warbaahinta. wasiir Ciise Kayd Maxamuud waxa uu ka warramay oo uu warbaahinta faahfaahin ka siiyay waftigii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi hogaaminayay ee dhawaan tagay dalka Djibouti oo wasiirku uu qayb ka ahaa. wasiir Ciise Kayd Maxamuud ayaa sheegay in waftigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ahaa mid dhaqan oo si rasmi ah loogu marti qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo aan haba yaraatee wax siyaasad ah ku jirin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa isagoo igu soo nabad celiyay dalkeennii Soomaaliland. waxaan ku maqnaay marka muddo 6 cisho ah dalka Jamhuuriyadda Djibouti aynu walaalaanahay. kadib markaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele aanu ka helnay casuumad aroos aanu ka helnay ayaa anigii madaxweynaha aanu soo raacnay halkaas. waxaana u dhamaatay si aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan. kadibna hawlihii kale dalka yaalay Djibouti ku saabsanaa arrimaha dibadda ayaan dabeedna waxoogaa aan dhowrka cisho dambe madaxweynaha ka dambeeyey aan ku mashquulsanaa. marka wax walba waxay u dhaceen in fact sidii aan filaynay si fiican baana lagu soo dhaweeyay Jamhuuriyadda Djibouti meeqaam sare ah. marka aad iyo kale miidiyaha waad ka aragteen aad iyo aad bay qurux badnayd si lagu soo dhaweeyay. marka saas ayaa ay ahayd muhiimka aanu safarka u tagnay oo aan wax kala lahayn oo aan siyaasad lahayn oo aan lahayn haba yaraatee waxaan social media lagu qorayo aanay waxba ka jirin. waxay ahayd kulan dhaqan oo dadka kuwa isugu nacab baa isugu yimaada geeriyaha iyo aroosyada anaguna kuwa isugu jeclaa baanu ahayn. marka arooskaas ayaanu ka qayb galnay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wasiir Ciise Kayd Maxamuud waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar been abuur ah iyo tuhunno sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda dalka Soomaaliya ay kulamo yeesheen. waa been. madaxweynaha Soomaaliland lama kulmin madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya wada hadallo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi haba yaraatee wax kulan yeesheen ma jirto.